عاقل حسن شقلا يري كل دد بدن با كدبا hadlay oo jawaabay laakiin hal eray baan anu ka qaadanaya waxaan ka soo jeedaa anigu dadka uu xasan sheegay caaqilku ee yiri waa ma yeedhaan hoos bay u hadlaan hadalkooduna ma gaadho xafiisyada dawladda dadkaas waxaan kula dardaarmayaa gudoomiyaha gobolka oo awalba uu gacanta ku hayay maayer Cabdishakuur Mohamed Xasan Cidin in adiguna aad hoos u eegto dadkaasi waxay isugu jiraan Arab Hindi Madibaan Mustaderiyo Anas Yibir dadka inta hoos loo liido ayay ku jiraan haddaan shakhsiyan in yar ku daro waxaan hay mas'uul gobolkan ka soo jeedo madaxweynuhu dikreeto ku magacaabay inta maanta martida halkan joogta marka laga reebo waxaan hay mas'uulka kaliya gobolkan joogay dikreeto madaxweyne ku magacaaban baarlamaankuna cod aqlabiyada ku ansixiyeen waxa yara aabahay wuxuu ku dhashay Berbera hooyaday waxay ku dhalatay Berbera aniguna waxaan ku dhashay Berbera waxaan ku guursaday Berbera meel aan ka jecelahay ma jirto maantana Yurub baan uga soo haajiray dadku waxay yiraahdaan goormaad noqonaysaa waxaan ku yiraahdaa nimcadan Berbera ku haysto Yurub kama helayo nimcadu waa hawada iyo neefta inta aan reer Berbera arkayo waxa Berbera ku dulman dadkii asal ka soo jeeday reer Berbera oo daarool iyo barwaaqiyo ku dulaysan dadka hoosa loo eegan leeyahay inta dhalaalaysiyo inta hadlaysaana waa inta halkan isaga mahad celinaysa aniguna mid yar baan tirsanayaayo garanna maayashay godobta iga raacday yana waa ceeb waxaan leeyahay tolkay warka waan toobata waan idin wada jecelahay niman xumaato u qabaana ma jirto oo wallaahi Berbera horumarkeeda waan qirayaa wasiirka maanta halkan fadhiya wasiir Naasir Umar aabihii waan iska soo horjeednay aabihii aabahayna saaxiib bay haayeen secondary schoolka uu ka baxay ee Bursade ragii dhagaxa dhigan ku jiray 7 nin oo gudida ka tirsan baan ahaa maanta dugsigaas uu ka baxay secondary school weeye haddana jaamacad buu uga wareegay dadkii dugsiga Bursade dhagax dhigay baan ahaa xogayaha dawladda hoose intaanu baakir ciid ku shubno ayaanu gurigiisa iyo gurigeeyga isku dhagan oo ooda isaga dusi jirnay Cabdikariin aadan cadde war wax badan ka tanaasulan leeyahay tan waa laga tagayaa nin kasto maanta hadlay wadnaha un baa istaagaya waxaad shaqaysatay baa ku raacaya nin reer Berberon xumaato u qabaana ma jirto sidaan idinku calool fiyoobahay dadkayga iyo dadka jilicsan ee kale reer Berbera hal la wada eego intiina waxay satay taasaana maanta sharaf iyo godoba waan idin wada salaamaya